barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Qaba ayaa maanta kulan la qaatay cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradka gobolka Togdheer kulankan ay ka gorfeynayeen sidii ay u wada shaqayn lahaayeen iyo waliba sida isaga kaashan lahaayeen qabsoomida diiwaangelinta codbixiyaasha muwaadiniinta gobolkani Togdheer waxaana ugu horeyntiiba barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo uu faahfaahin uga bixiyay ujeedada kulankani warbaahintii ka soo qayb gashay kulankaasi laba ujeedaan idinku yeeray ta koowaad inaynu isbarano oo aynu soo barano inaynu saragno maadaama ku cusbay gobolka talabaadna waxay ahayd ishuugan imika taagan maanta ee diiwaangelinta oo wali waxoogaa contradiction yar baa jira isafgaran waa baa jira laakiin aan aad la isu waraysan waxaan ku horeyn doonaa taa diiwaangelinta gudida commissionku maalintii ku xigtay waan isugu yeeray afar nin bay ku joogeen halkan toddobadoodii sidaa u wada arkaysaan nin walba dareenka ku jira ayaa annagaba nagu jiray mana doonina dadkeena aan wakiilka una in la dhibo iyo inay hadhow ku waayaan xaq ay leeyihiin dastuuriya inay ku waayaan maaha commissionku ujeedada iyagu iyo waxay wanaajisanayaan maaha qodobka 8 dastuurkeena waxa weeyaan qofku xaq wuxuu leeyahay inuu waxna doorto waxna lana doorto marka inuu xaqiisa seega maaha arinta in la goboleeyo doorashada oo la degmeeyo waxay ka timi waa ogeedeen oo diiwaangelin horeynu galay oo codbixiyaala waliba donorsku inaga caawiyeen iyo caalamku way inaga fashilantay waxay nooga fashilantay inaga abuse gareynay ku celcelinay shan kaar qaadanay kadibna serverki wuxuu awoodi waayay inuu kala sheego inta qaldan iyo inta saxan laakiin hadii la goboleeyo ama la degmeeyo aaladan yar ee la sameeyo waxa laga yaabaa inay qofkii soo qabato wax badan maalintii 9 ilaa iyo 12 3 saacadood baan halkaas ku haynay waxaan isla garanay maalmaha hore 7 cisho hore wasdee 20 cisho soconaysa diiwaangelin 7 cisho hore qofku choice ma leh ma oran karo meel waan ka diiwaangal hadhow meel heblaan ka foodaya meesha uu joogo ayuu iska diiwaangelinaya qofku waa 7 cisho hore inta dambe wuxuu xaq u leeyahay isagoo burco jooga inuu yiraahdo ood weynaan ka foodaya oo reeyood weynaan hay laakiin halkana waqtigu igu qabsaday ee hal igu qoro ood weyni sidoo kale waxa iyaguna geestooda hadalka iska daba maray cuqaashi salaadiintii ka soo qayb gashay kulankan iyagoo ku dheeraaday inay soo dhaweynayaan barasaabka cusub ee gobolka Togdheer isla markaasina ay si wada jir uga la shaqeyn doonaan dhinacyada ammaanka horumarinta gobolka iyo waliba qabsoomida diiwaangelinta codbixiyaasha muwaadiniinta ku dhaqan gobolkan Togdheer ka hadlay arrimahan ka hadlaysan oo yiri dadkii uu guuray taasina waxay u taalaa inuu kala hadlaynaa inuu qofku ka codeeyo meesha uu isagu waxa weeyaan ka soo gaaro dalka ee markaa uu degan yahay waxaanu kala hadlaynaa commissionka qarankeenu taana kala hadlaynaa rag baynu u qaybinoo dawaynu kala hadli barasaabkuna hore uga hadlayo meediyaha ugu mariyay in dadkii guuray oo uu ka dhacay meel fog qodobka ku xiga waxaan oran lahaa wacyigelinta kaarka codbixiyayaasha waanu soo dhaweynaynaa balse wacyigelintii aanu ka ahayn odayaasha iyo duqaytida ee aanu wacyigelin lahayn dadka barasaab adna aad ku xilbixi lahayd dee hargeysaaba lagu soo kala goostaa bal waxaanu wax ku wacyigelin lahayn guddoomiye waa kaa sugaynaa dadku waxa weeyaan waa reer baade waa xoolo dhaqato wixii dhulka bad baan roob ku helin dadkii guuray ee u guuray meeshii naqu lahaa ee dadkoodii ka dhulkoodii ka barakacay halka ay joogaan bay ka codeynayaan ay ka qaadanayaan bay ka codeynayaan waa wax dadku jardiid aad iyo aad u diiday waa in reer waliba meesha markuu Soomaaliland yahay ninkii waxaad ka soo qaadaa burco reer burco meesha uu ka qaato waxaan leeyahay barasaabka cusub waa ku soo dhaweynay aad baan ku soo dhaweynay imikana waa ku soo dhaweynaynaa mar kastaba waxaad naga mudan tahayna waanu garanaynaa hadaan nahay cuqaasha kaarka halka qofkaasi uu soo gaadho ha ka qaato hadii la doonayo dadku inuu codeeyo annaguna waxaanu ku qasbaynaa in dadka aanu soo guro waa ku qasbanay oo aanu keenoonaano qaata kaarka qaata
laakiin haddii la yidhaahdo wax la kala qoqobo waxaa barasaabka oo aan u aqaano nin active oo shaqadana aan filayo inuu ka soo bixi doono horta ragga ilaashanaysa waa ragga tiknikada halka fadhiya taa waan kula dardaarayaa barasaabka waayo haddii maanta wax dhacaan inta loo baad yeelaysa diiwaangelinta noqoto horta Soomaaliland haday badan tahay hadii kala caaqilku ma yaqaan tiradeeda ugu dambeyntiina barasaabka gobolka Togdheer waxa uu booqasho ku tagay aqalkii lagaga dhawaaqay madax banaanida dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland bariishka weyne gobolkani Togdheer oo isagu ka socoto dib u habeyn ballaaran iyo waliba wasaaradda maaliyadda gobolkani Togdheer oo Burwaaqo Aadan Maxmed shabakada caalamiga oo Wadweyne News magaalada Burco.